Assalaamu calaykum daawade beri waxaa jiri jiray wiilkan yar oo la odhan jiray Raamu waxa uu ahaa mid markaasi aad iyo aad u taag daran oo hagaasa waxayna ahaayeen mid markaasi ay dadka derisku ku sheekaystaan Raamu iyo hooyadii waxay u yimaadeen ayeeydii waxa ay ku canaanan jirtay markasta hooyadii malaha wiilkan yar cunto ma siisaan oo dan kama lihidin mana nafaqaysaan maya ayay ku tiri hooyadii waan siinaa hooyo oo waxaan siinaa maalin kasta cunto aad iyo aad u fiican oo nafaqo leh sida hilibka ukunta iyo khudaarta ayay tiri markaas ayay tiri ayeydii maxaa helay dhib male waa uu iska kori doonaa marka uu weynaado waxauna noqon doonaa mid markaasi isbedela aragtidiisa Raamu ayaa ayeydii waxa uu ugu jawaabay ayeeyo waan dhibsaday dhuubnidan dadkuna way dacaayadeen markasta iyagoo igu wacaya findhicilkiyo ayeydii waxa ay ku tiri ayeeyo waxaas waxba ka soo qaadin waad kori doontaa marka aad weynaatid waanad isbedeli doontaa Raamu waxa uu u yimiday mid saaxiibkii oo ay markasta isla ciyaaraan iyagoo halkaasi ku wada ciyaaraya waxa uu yimiday saaxiibo kale oo ah markasta kuwa u awood sheegta Raamu kana qaata waxyaalaha uu ku ciyaarayo balse waxa uu ku yidhi kubaddan maanta idinma siinayo oo aabbahay ayaa ii soo gaday Raamu maadaama uu ahaa mid taag daran markastana la garaaco waa uu cabsaday kubaddiina waxa uu ku wareejiyey saaxiibadiisii ku yidhi kubadda annaga ayaa leh ee nagu soo wareeji Raamu iyo saaxiibkii waa ay iskaga carareen meeshii maadaama oo laga qaatay kubadda kuwii kubadda ka qaatayna waxay ahaayeen kuwo markaasi iyagoo ku qosqoslaya waxa ay hoos fadhiisteen geed iyagoo markaasi aad iyo aad u murugaysan waxayna ka xumaayeen sida maalin kasta looga qaadanayo waxa ay ku ciyaarayaan Raamu saaxiibkii ayaa ku yidhi habeen ayay noqon rabtaa ee ina mari gurigan aadne Raamu ayaa ugu jawaabay saaxiibkii adigu iska tag anigu waan kaa daba iman doonaaye Raamu aad iyo aad ayuu u walwalsanaa isagoo ku soo socda gurigooda ayaa waxa uu arkay geed muuse oo markaasi hilaac ka baxayo geedkan ayaa ahaa mid markaasi nuuxnuuxsanaya waa uu fiiriyey Raamu waxa uu soo ahaa geedku mid markaasi hadlaya oo kule Raamu waxaan rabaa in aan ku caawiyo Raamu waa uu yaabay waxa uuna yidhi waxa aan arkayo Maria mise waa run waxa uu ugu jawaabay geedkii waa run oo aniga ayaa kula hadlaya waxaana rabaa in aan ku caawiyo maadaama aad tahay mid hagaas oo aad iyo aad u taag daran waxaan rabaa in aan ku caawiyo waxa uu ku yidhi Raamu seedii caawinaysaa waxaana ugu jawaabay geedkii waxa aad goosataa geedkayga hal muuse oo ka mid ah kabacdi adiga ayaa arki doona isbeddelka Raamu waxa uu cunay hal muuse isagoo oo markaasi isbeddelay waxa uuna dareemay isbeddel xoog leh gebi ahaanna waxa uu u soo muuqday mid xoog leh oo markaasi aad iyo aad u muuqda aragti ahaan oo aad iyo aad u qurux badan Raamu waa uu yaabay waxa uuna u mahad celiyey geedkii waxa uu ugu jawaabay waxaan rabaa inaad ii abaal gudud Raamu waxa uu ku yidhi diyaar ayaanahay waxaan rabaa ayuu ku yidhi in aad isoo waraabisid oo aad biyo ii soo qaadid Raamu waa uu soo cararay isagoo markaas u soo kacay dhankii webiga biyihii ayuu soo qaaday waxa uuna waraabiyey geedkii ayaa haddana la hadlay isagoo markaasi ah mid hilaac ka baxayo waa uuna u mahad celiyey Raamu oo aad iyo aad u amakaagsan waxa uu u soo dhaqaaqay dhankaas iyo gurigoodii isagoo u yimid hooyadii iyo ayeydii way ka yaabeen sida uu isku beddelay gebi ahaanba muuqaalkiisii waxauna uga sheekeeyey hooyadii iyo ayeydii qisadii qabsatay iyo sidii uu muuska u caawiyey sidoo kale inuu isaguna u abaal guday oo uu markaasi waraabiyey geedkii muuska ahaa Raamu ayeydii iyo hooyadii aad ayay ugu faraxsanaayeen sida uu wiilkoodu isku beddelay Raamu waxa uu u yimiday saaxiibadii hadda ka hor dhibi jiray kana qaadan jiray wax kasta oo uu ku ciyaarayo isagoo markaasi ka qaatay kubaddii waa ay yaabeen sida uu isku beddelay uu markaasi u noqday nin xoog badan waxayna weydiiyeen halkeed ka keentay waxanoo xooga halkeed isku soo beddeshay su'aalo noocaasa ayay weydiiyeen balse Raamu waxa uu ku yidhi maanta maaha maalinkii aad iga xoog badnaydeen
waxa uuna u soo dhaqaaqay dhankoodii, balse waa ay ka cabsadeen ninkan xoogga weyn inuu garaaco, wayna iskaga tageen meeshii. Raamu ayaa ku qoslay, waxa uuna ahaa mid markaasi farxad ku noolaa.